السلام عليكم أخيار ميل باجبتان جمعة ونكسن وحرب إن أنا لو ذا وشك وآد ما عرفت إيسو جيدتي إن بدنا كفكرة شكلنا حكوس بسنت هاي تكوركا يو فقوقا أي أمدا ما عرفت الصومالية بدن كود إكو هيان دت كنا فضاء شكلنا مركا وحكوس بسنت هذا كهر مر عن شقة كجري مقالو كم إذا الصومالية عن كوبا خذي دت بركة عياله maamo waxaa jirta marka aan wareysanayne oo dadkii aan barnaamijka markaas aan u socday kamid ahayd ka qayb galay marka maamada magaceeda wareystay aan la fariistay iyo caruurta ay haysato waxay igu jawaabtay hooyo waxaan haystaa 4 ciyaal iyo hal naafa ah aad baa marka aan ola yaabo waxaan ku yiri hooyo maxaad kan naafada tirada uga bixinaysaa maxaa u leedahay 4 ciyaal aan haystaa iyo mid naafa maxaad gooni uga dhigaysaa ilaa waxaad haysataa 5 caruur maya waxaan ka wadaa midkan macnaha waa isaga waa naafo waay ee leedahay marka waxay ka dhigaysaa inuusan waxba ahayn aad bay marka niyadeeda ma aragtay oga naxay waxaan is dhahay maamadii hooyadii dhashay inkastoo aan hubo inaysan takoor iyo faquuq iyo waxa ka ahayn balse haddana waxay ku tusinaysaa society iyo bulshada ay ku nooshahay iyo xitaa guriga inay ka bilaabanayso faquuqa tan igu si xanuunka badneeda waxay ahayd markii aan dhahay haya caruurtaada waa kuwan halka fadhiyo waa shantii aw yarkii kale ilaan banaanku ku ciyaaraya waa midkii ay dhahaysay waa naafo markaas wallahi waxay tiri lugay magaciisa xitaa ugu meesii yeerin waan naxayo isagoo yaro waxa yimid dhutinaayo oo yaro jiisaayo ma fahantay hooyo waxaan ku dhahay cunugan caruurtaadu kamid yahay 5 baa haysataa waligaa ha kala saarin taas mar hadduu maaragtay naafayaha ilaahay ugu qadaray macnaheeda maaha inuusan waxba ahayn waxba tari karin hadhowna iskuulkii markuu tago bulshadii uu ku dhex noolaa waxaa cunugan ka dhaadhacaysa inuu naafayahay lugay la dhaho oo waxba uusan tari karin marka waxaa kaga qiyaas qaadanaysaa bulshadeena meesha ay ka marayso xitaa guriga ay ka bilaabanaysaa faquuqa kadib maxaa u malaynaysaa iskuulkii iyo waxbarashadii iyo bulshadii kale markuu dhex galo waxaan rajaynayaa in sheekadan fikir kugu dhalin karto oo aad ma aragtay ka fikiri kartid dhibaatada iyo saameynta ay ku yeelan karto caruurta iyo dadka la fuquuqaayo ama la takoorayo oo naafanimadooda ma aragtay lagu bahdilaayo waxaan isleeyahay wax laga qaban karo oo laga bilaabi karo bulshada wacyigelin qof walbana qofka kuugu dhow aad iska bilaabi kartid adiga aad go'aan qaadan kartid inaadan ugu yeerin qofka kalena kala talin kartid intaas rabin aad la wadaago fikirkaaga waxa ka qabtid arintan bal ila wadaag commentiga oo mahadsantiin jimcaha wanaagsan assalamu calaykum